badan oo cibaado badan oo sharaf iyo cisi leh ilaahay naxariistii janno waasaca ka waraabiyo taliya Fadal allana ha u naxariisto dambigiisii iyo dambigii waalidkiina allah ha dhaafo iyo keeniba waa la kala horeynayaa geeriduna waa xaq maalinba qof aad jeclayd oo magac بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت هل كان waxaan tacsi tiiraan la uga dhigayaa taliyihii ciidanka Booliiska Jamhuuriyadda Somaliland taliye Fadal oo xalay ku geeriyooday isbitaalka guud ee Hargeysa waxaan leeyahay ilaahay naxariistii janno waasaca ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo dhammaan guud ahaan qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee uu ka baxayna ilaahay samiriye Iiman ha ka siiyo geeridu waa xaq waana la kala horeynaya tacsi aad iyo aad u xanuun kulul weey runtii tiir adag buu ahaa runtii wuxuu ahaa haliyay geesi inaga baxay oo guul dhashay buu ahaa ciidamada Booliiska meel wanaagsan buu gaarsiiyay amniga dalkana qayb libaaxla ayuu ka qaatay taliye Fadal maalinteedii buu dhintay maalin loo baahnaa buu dhintay waa dhinte ka aan dhimanno waa ilaahay ilaaha weyna waaxid alxadka ilaahay baa xayu laa yamuuda waynu wada dhimanaynaa waynu kala horeynaynaa kaalin runtii loo baahnaa baa banaanaatay ilaahay naxariistii janno waasaca ka waraabiyo taliyihii ciidanka Booliiska Jamhuuriyadda Somaliland taliye Fadal aad baanu jeclaa geeridu runtii waa talabada qof ee isjecel kala qarisa adduun lagu waari maayo qof walbana maalintiisu dhimanaya waa la kala horeynayaa xalay markii la sheegay waxaan u maleynayaa dadkii loogu horeeyay loogu horsheego ayaan ahaa runtii taariikh wanaagsan ayuu dalka ku lahaa Booliiskana meel fiican buu gaarsiiyay waxaan xasuustaa anigoo waddanka dibadiisa jooga ayaan habeen barka la soo hadli jiray taliye Fadal isagoo in weydiin waxa aan ahay ayuu wareysan jiray habeen barkan la soo hadli jiray oo wixii dalkeena iyo waddankeena dhibta ku ah ee aan arko inuu khatar ku yahay baan la wadaagi jiray xilliyada ugu xunxun baan la soo hadli jiray waqti aan waddanka dibadiisa aan ka maqnaa runtii waxa aan arrinka u soo qaatay siduu u foojignaa ee uu waddanka ugu shaqeynayay ee aan u seexan jirin ee uu amniga iyo xilka iyo mas'uuliyadda saaran runtii uu uga shaqeyn jiray telefoonkiisu open buu ahaa cid kasta oo la soo xidhiidha oo arrimaha amniga kala hadlaysana isagoo aan madax iyo mijo iyo cidnaba aanu eegin buu wareysan jiray ilaahay naxariistii janno waasaca ka waraabiyo waxaan ilaahay ka rajaynaynaa bedel khayr qaba inuu booskiisi alla inoogu bedelo taariikh wanaagsan buu ka tagay ciidanka meel fiican buu gaarsiiyay amniga dalka si wacan buu uga shaqeeyay wuxuu ahaa mas'uul qaran oo waajibaadkiisa iyo xilka uu hayo fahansan oo naxariis badan oo cibaado badan oo sharaf iyo cisi leh ilaahay naxariistii janno waasaca ka waraabiyo taliye Fadal allana ha u naxariisto dambigiisii iyo dambigii waalidkiina allah ha dhaafo iyo keeniba waa la kala horeynayaa geeriduna waa xaq maalinba qof aad jeclayd oo magac iyo maamuus iyo sharaf iyo karaamo iyo waxtar waddanka ku lahaa baa baxaya nabigeeniba uu dhintay khayru khalqillaahi khaatumul anbiyaa adduunyada qof ku waaraya ma jiro qof walbana maalintiisu dhimanaya mas'uuliyiinta kalena inay ku daydaan sida wanaagsan ee u shaqeyn jiray ayaa fiican oo laynooga baahan yahay qof walbana geeridaas way sugaysaa qof kastana wixii uu shaqeysta shar iyo khayr ayaa runtii hor yaala oo ilaahay la hortagaya haddii uu xumaa iyo hadduu wanaagsanaaba
qof walba taasaa sugaysa geerida waa inuu qofku ku tusaale qaatay inaanu ku waarayn ilaahay naxariistii janno waasaca ka waraabi ilaahay dembigiisii ha dhaafo ilaahay jannada ha geeyo ilaahay qabriga ha waasiciyo cadaabta qabriga allah ka nabadgeliyo ilaahay ha u naxariisto dembigiisana allah ha dhaafo aynu wada ducayno meel kastaynu joogno waa maalin murugo waa maalin runtii aad u xanuun badan taliya Fadal intii garanaysa qof aad u qiimo badan buu ahaa insaan sharaf iyo karaamo leh buu ahaa inta aan ka aqaana anigu naxariis badan markaad wax u sheegtay iyo markaad u dacwootaba ku dhageysta wixii u bedeli kara bedela taariikhda xusi doonta noloshiisa la ilaawi maayo wixii uu ciidankan iyo qarankan iyo wanaag u qabtay runtii walaalayaal qof kasta oo reer Somaliland ha ogaado qiimaha uu lahaa taliya Fadal iyo amniga uu dalka gaarsiiyay waanu ducaynaynaa aynu wada ducayno quraankana ha loo akhriyo ha loo baroordiiqo ha la xuso aynu ducayna dhammaanteenba wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay ha u naxariisto waa ayaan nin aroosanaya ninna iilgelaya duni aakhir sabaan cidna ku waarmaysa adduunyada mid baa dhimanaya mid baa soo dhalanaya geeriduna waa xaq taas ayna wada sugaysa ilaahay aynu u dhawaano camalkeena aynu wanaajisano xaqanaaska aynu iska ilaalino adduunyo lagu waari maayo maalinba qofkii aad ogeyd ee magaca lahaa ayaa meesha ka baxay maalinba qofkii aad ogeyd ee magaca lahaa ee karaamada lahaa ee qiimaha lahaa ee adduunka lahaa kafan baa ka raacay intaas ayaan leeyahay allah u naxariisto tacsidii waanu tagnay waanu soo booqanay qof inagu qaaliya buu ahaa ilaahay dembigiisa ha dhaafo ilaahay qabriga ha u nuuro ilaahay cadaabta qabriga ka nabadgeliyo ilaahay su'aalaha u fududeeyo ilaahay jannadii ha geeyo ilaahay baanu baryaynaa dembigiisa iyo dembigii waalidkii iyo dembigii ummadda nabi maxamed ba allah dhaafo wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu